maanta waxaynu u baahannahay dad u guntada oo hormuudka ka yahay dee waxay la tahay fannaankana waanu ku daraynaaye fannaan dee codkana aawgaga darani nabadoon ururka nabadoonna dowladda uu madaxweynaha ka yahay muuse biixi way taageersantahay السلام عليكم كل ونكسن انت هذا نقدر دعونا ساي سوالي محمد لما تدون سلامي برنامج كم الموضوع عندنا إنه إن كان هذا الله وحو كسب سي هاي سوالي المركز لقى هذا يو أما ضد سومالي نبكو جبضا وحو كتها كي هاي دجان كعلف وين اللي يرحدو وكتر سن قبل كسناك muddo badan oo isku bedel laba xukuumadeed ah oo dawladii hore Silaay iyo dawladda Muusaba waqtiyadooda kamid ahaa ay ku dagaalanay halkaas dad fara badan oo dhinacyada bulshada kala duwan oo aan ku jirin fanaaniintu oo culimadu markii ugu dambeysay qayb ka ahaayeen oo Sheekh Diriri oo ay hogaaminayeen oo salaadiinta oo siyaasiyiinta وعد كستا إلى الحباء لو تشركات تجي لكن داري واحد كستا اللي بكرة سبيه نبكو دمان وعي معلن كستنا وحصور تجلا إن هالكان دمشق يدعوا وكذا تد كلمة يدد هالكان سكوت تجلا يا ودد سكوا أبتيا سكوا سيديا المابتيا حجالة ودد حلا أردن عكستا مركز يكتنورش حينتاب wadaaga ama dhinacuun iska soo galaya inaan yaabtigi laba nin isku seediya laba nin oo hadu daan isku soo doga adiga soo dagaal iska horimanay oo istagaalaya dibkaas iyadoo jirta wax kasta oo arrimaha bulshada ama dadka bulshada haldoorka oo mudanta oo ilaa heer madaxweyne ah oo ilaa heer sheekh iyo suldaan ah wala galay arrinka wala dhameeyay waay waxa cusub mudan markii ugu horeysay fanaanka Maxamed Saciid BK magaalada Hargeysa wuxuu ku qabtay kulan lagaga hadlayo arrinkaasi laguna dhiirigelinayo urur la yiraahdo nabadoon oo ah urur ay ku mideysan yihiin dhalinyarada ka soo jeeda labada beelood halkaas ku dagaalamaya laguna naaqusayo colaada aan macnaha weyn ku fadhiin ee halka ka taagan hotelka karo waxay isugu yimid dad fara badan oo bandhiga barnaamijku uu soo galitaankiisu free u ahaa waxa sidoo kale la marti qaaday oo la isu keenay siyaasiyiinta iyo haldoorka bulshada Soomaaliland oo halka ku la foguray bal halka ay ka qurusan tahay sarto iyo colaada culif weyn sababta ay u xirmilaadahay sidoo kale waxa halka lagu la foguray oraahyo ama baaqi kala duwan oo bulshada halka ku nool loogu baaqaynaa sina u kala maarmin colaadna natiijadeeda ugu dambaysa ay tahay kugu dhimiyo ka dhimay oo wax faa'iido ah oo ka soo galaya aanay jirin dagaalka iyo colaada waa shayga kaliya ee natiijadiisu ay ku soo dhamaato waxba ka faa'iido haddii adduun la tabcado maal baad helaysaa haddii la guursado ubad baad helaysaa haddii wax la barto cilmi baad helaysaa laakiin haddii la dagaalamo wax alla waxaad helaysaa ma jirto aakhirana seegta adduunkana seegta walaalkana kaa dhimay adiguna dhimatay gabadh baa sii qaaday hooyaa goblantay walaal baa garab waayey wax ku dhex jira ma jiraan marka barnaamijkaas oo habeen dhaweyd ka dhacay habeen hore ka dhacay hotel Hargeysa ku yaala ayaa bandhig qurux badan loo sameeyay waxaana lagu la fakuriyay barnaamijkaas waana markii ugu horeysay colaada cilaf weyn fanaan Soomaali ah uu isagu inta uu dadka marti qaado oo halka kala hadlo oo la fakuro oo colaada iyo beelaha dagaalamaya baaq loo diro sidoo kale waxa markii ugu horeysay ahayd oo marka taariikhda dib u raacno
barnaamijkii la odhan jiray qabyaaladiid markii ugu horreysay waxa uu sameeyey barnaamij la yidhaahdo qabyaaladda lagaga soo horjeedo oo ku maray gobollada somalilan oo dhan sidoo kale waxa uu ku jiraa ama waxa uu kow ka yahay fanaaniintii diiday inay la kala saftaan markii xisbiyadu ay ololaha somalilan doorashooyinka ay u tartamayeen oo ahayd xisbiyada kulmiye iyo wadani iyo ucid waxaa xusid mudan waqtigaa in fanaaniinta hadday noqoto abwaaniinta hadday noqoto kooxaha in qolo kastaaba ay raaceen xisbiyada ay abtirsimo ahaan ku abtirsadaan ama murashaxa iyagu ay reernimo ahaan ku abtirsadaan isagoo laakiin sidaa waa diiday barnaamijku barnaamij qurux badan buu ahaa siyaasiyiin baa joogay fanaaniin baa joogay oo ay ka mid ahayd nadiira nayrus hadda sidii uu u dhacayna wad ila yara daawan kartaan caawa waxaynu falanqaynaynaa ilaahay nabad ha ka dhigo horta ceelaf weyn faatixada umara u duceeya maasha allah wasiirada iyo madaxdayna la fadhida allaha karaameeyo wayna soo karaameeyeen waqti badan bay noo soo hureen idin kala garan mayna guulaysta waxaan leenahay aad baa u mahadsantiin aad halka waxaan ugu hambalyaynayaa saddexda xisbi qaran waxaan leeyahay guul iyo gobonnimo inaynu nabadda isu wada taagno oo aanaynu maal ka sugine qof walba isaga qaamaa jeclaan lahaa maasha allah mahadnaq usoo jeediyo walaalkeen maxamed saciid abdibike oo sharaftan quruxda badan noo qabtay waxaan kaloo anagu halkan caawa isugu nimi inaanu sii wadno howlahayagii ururka nabadoon anoo ku hadlaya afka ururka nabadoon anagu waxaan nahay dhalinyaro ka kooban sidii afhayeenkaygu hore u sheegay labada beelood ee kasoo jeeday ceelafwey oo ka dhidhiyo xumaanta ka socota iyo dhibaatada halkaa ka socota wax allaali wax ay dadkaasi isku leynayaan iyo waxa isku ayaamaani jirin oo aanu maanta iyo howlo iyo qaybo ka horreeyay baanu qabanay sidii loo dardargelin lahaa in nabad lagu soo xalliyo ta kale aanu bulshada somalilan tusno in dhalinyaradu ay door leedahay nabadda iyo wax kasta ay kaga qayb qaadan karto ay leedahay rool ay ku nabadeyn karto deegaanka iyo deegaan kasta somalilan ka midaba horta aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad aqoon-yahanada iyo wasiiradaba sidoo noo soo ajiibteen halkaana maanu gaadhnay haddaanay somalilandna garab taagnayn oo madaxweyne ugu horeeyo inaanu maanta halkaa kusoo dhiirano oon marti sharaf intaa leeg isu keenno si aanu u wacyigelin lahayn dhawaana aanu insha allah u soconno inaanu tagno deegaankii ee dhibaatada ku socotay aanu ku tala jeedno dhibaatadeedu ay tahay ama halkudhigayga uu yahay haddii ay aanad nabadda waxba ku darsanayn colaadda waxba ku darsan haddaad nabadda waxba ku darsanayn colaadda waxba ku darsan af iyo adin iyo gacan midna ha geysanin sababtaa dadka meesha isku leynaya waa dad aada u jaahiliina waa dad dhalinyaro ah sida iyadaa aanu ka dhidhinay qof weyn oo ma 30 ama 40 gaadho meesha ku dhimanay lama soo sheegin qofka ugu weyn waa 25 waxaa keena waa qowdarrada waa dhibaatada waa iyagoo la kala maarin waayey waxaan kaloo codsi soo jeedin lahaa madaxda halka fadhida iyo sharafta iyo aqoon-yahanada iyo siyaasiyiintaba inaanay caawa wax halkaa ka hadla wax nabadda ka hadlayo iyo dhayo mooyaane inaanay boob lagu kicinin oo aanay odhan hebel baa ka dambeeyey iyo siyaasi hebel baa ka dambeeyey iyo dowlad hebel baa ka dambeysay iyo waxyaabaha aanay nagula hadlin oo ay noo sheegaan uun annagu waxaan caawa halka isu keennay maadaama aanu xaggaa u soconno inaanu si urursanno xogo oo aanu deedna research kusoo sameyno dhibaatada halka ka xamilaada cid kasta meesha waa loo diray wax loo diray odayaal baa loo diray cuqaal baa loo diray wax loo diray wadaaddaa loo diray fanaaniin baa tegey wax kasta meesha waa lagu eegaa dhalinyarahay marka annagu haddaan nahay dhalinyarada wax sideenna waa maalintiinii oo waad waxxun baa kasoo bedeli kartaa maanta haddaan isu qaadanay inaan maantii dhalinyarada tahay waxaan jeclaan lahay in lagu soo eego oo aan meeshii gaadhno haddii la maqli jiray colaadda cidda u dhimatay maanta diyaar buna in nabadaan lagu dhimanno oo annagana lagu soo horeeyo dadkaygana waanu sheegaynaa kuwa nala baxaya kuwa naga soo horjeedaba inaanay waxa isku hayaan wax weyn oo halkaa gaadhsiisan aan ahayn oo ay yihiin dad loo kala adeego runtii waan dheeriyay anigu waxaan isu istaagay inaan idin mahadnaqo aad iyo aad iyo aad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba aad u mahadsantihiin waa mid kasta waa mid taabanaysa damiir kasta oo doonaya maanta dadkiisa iyo dalkiisu inuu wanaagsanaado oo uu ka mid noqdo goobaha wanaagsan ee ummaddu ay ku nooshahay wanaagsan ma odhanayo dadka meesha jooga oo dad xun laakiin waxaan leeyahay sabanka maanta aynu joogna waa saban xun weeye waa sabanka maanta sana ee xabaddu joogsan lahaa
وسبكا إنك يبتغي سعوديين وسبكا حريرتي يركي ما تاي كي تكتران يقول قودي هو إلهي وسبكا ما تاي بتفنو نقول با ميكي حواها وقرن لا يحي وسبكا ما تاي هو أبتستان إنه كلي حق يابه إنه يلوني حقي هو وسبكا ما تاي أنا قلت له أيوه أبتغي إنه يديره ما قلت تاسي وحنا الله هو إلين ما أيوه تذكينا لكن وحنا إلين يا شيطان وحنا حضايا إلهي لو ما نسبيه شيطان بالو نسبيه وحين دورينا إن ما تأكل قدبنا أو قدبنا وحين السنة لكن تذكر رئيس سؤال له حاليا يا إن النقل فكر كيرنو وحان ميل جوكتا أهيسان يا مربى مالي النورة وحق فكر كلماته وحن عارضة كوكين deegaan ka dadka wada dega habar lamaan ina wasiirku xoogaa uu yare hagaaji sababta habar lamaan ku baxday baa idin sheegay isagu tiisu waa siyaasadeeyey horta waa habar jeclo iyo habar yoori soo socda baxno cidda habar lamaan u bixisayna waa anag waaga awood ay madiina gaarkeed isugu taagto may lahayn annaga ayay alliance loo samaysan jireen marka midkoodna si gaar ah laakiin waxaa runa inay maanta labadiiba isyara bideen sababta qoloba gaar isugu taagaysa oo ay dagaalka u samaynayaan horta waa sida waxaase u sheegayaan barciinta dhulkaa horta la degan yahay raggayga waaweynna waad u tegi doontaan waa dhul hadday garadag tahay hadday ceelaf weyn tahay iyo hadday dhulka kale oo dhan tahay waxay ka soo jeedaan dhul labadaa reer midna lahaa maahay maanta waxaynu u baahanahay dad u guntada oo uu hormuudka ka yahay dee waxay la tahay fannaankana waanu ku daraynaaye fannaan dee codkana aawgaga darani nabadoon ururka nabadoonna dowladda uu madaxweynaha ka yahay muuse biixi way taageersantahay madaxweynuhu waa arkay afka xukuumadda annagoo ku hadlayana diyaar baan u nahay inaanu taageerno sabab kasta iyo meel kasta iyo waqti kasta iyo goob kasta deegaan kasta iyo wax kasta oo lagu taageerayo ururka nabadoon ee aanu isleenahay ilaahay ku guuleeyay nabad u samaynay waxaan ku soo gabagabaynayaa ilaahay waxaynu uga baryaynaa ummadda in ilaahay bogooda burcad isu mariyo intii dhimatay ilaanu nirahnaa الله هو الحريستين ورانا كل ويستوني آيات القرآن كنا حبايلا وعقلك كلام معها صوتك كان هذا الحقوق بلا والله قدام بيا يوم إنبا وطا يا سياسة بالغرية وارنا بتكليا سياستنا نبتكليا حكومة تقاطو دولتنا نبتكليا حكومة إسنتو قرنا الدولة نبتكليا حكومة إسمو lacag iyo shaqana laguma helo nabadgelyo xumo horumarna nabadgelyo xumo laguma helo qof aan nabadgelyo helina ma noolaan karo waa inaanu xaqiiqada taa ogaano anigu arrintaa markaa waxaan u arkaa shaydaan iyo ibliis dadkaa meesha wada degan ku kooban oo ka dhex shaqaynaya allah mahadnaqa madasha duubitaankeeda waxaa lahaa Daily Music Production Axmed Weli Beeyo iyo Fahad Kaariye oo iyagana halkan ka salaamayo barnaamijka inaad fankaagu ama heesahaagu ay dhaafaan ama adiga laftirkaaga wada dhaaftid inaad show qabatid iyo in dadka aad hees u soo saartid jacayla kadibna hadhow tulo show aad ku meelaysatid inaad yara dhaaftid ood ka yara gudubtid qofka fanaanka oo mararka qaar uu arrimaha bulshada uu isagu uu dhexgal u noqdo ama uu ka geysto gacan aad bay qurux badan tahay
wana jeclaan lahaa fanaaniintooda inay isxilqaamaan oo markay arrimuhu taagan yihiin hadday noqoto dagaalka hadday noqoto dib u dhaca hadday noqoto horumarka marka arrimahaasoo kale la sameynayo waxaa qurux badan inay iyagu horseed u noqdaan bulshada oo ay u horseedaan qaybna ka noqdaan horumar kasta oo ka socda dalka iyo dadka oo qofku uu dhaafo inuu qol isku soo xidho hees yar soo saaro sticker dhajisto oo uu show qabto ha ku daydaan dariiqa la jeexay uu maxamed jeexay dariiqana ha raacaan waa dariiq ku dayasho mudan waan hambalyeynaa qof kasta oo isbedel la yimaada oo dadka wax ku soo kordhiya macnaheeduna maaha cid gaar inay durbaanada u garaacayna laakiin inagu markasta wanaaga iyo wixii qurux badan baynu durbaanada u garaacayna waana hambalyeyna waana dhiirigelinaa waqti salaadeed baan joognaa saaxiibayaal barnaamijka soo koobaya aad baan idiin salaamayaa waan idiin mahadnaqaya waqtigaadna siisaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu